oo ay gorgortan ku galeen dhahan gudoomiyaha nala siiyo iyo annaga nala siiyo waxay ku habboontaa maahane waxa loo fadhiyaa waa hab sharci waxa loo fadhiyaa baarlamaan waxa lagu fadhiyaana waa sharci hannaanka ayagoo ku fadhiyaan sharci bay ku fadhiyaan maaha marka wax la kala qaybsan karo bannaanka wax lagu kala goosanayo maahan qaybtii annagu aan garanay ee maslaxadda ahayd ee galmudug aan ugu tanaasulnaa in ay ku dhisanto oo ay cagaheeda ku istaagto ayay ahayd 20ka ayagoo ku yimideen waana 12 beelood waxaan leeyahay marka aan rabaa in halkan fursadda suga jeediyo 20ka xubnood ee xildhibaanada 12 beelooda waxaan u soo jeedinaynaa horta fursad ay haystaan fursaddaas inay ka faa'iideystaan oo ay baarlamaankooda dib ugu soo noqdaan ayagoo eegaya dhibka laga soo maray ayagoo eegaya ayagoo waliba xubnihii saxda ah xataa aysan mararka qaarkood ku taagnayn oo qabaa'iladii percentage-ka u lahay aan aysan ku fadhin oo si cadaalad darro ay markii hore inta badanba ku yimaadeen ayaan haddana mar labaad aan ugu sabarnay si ay galmudug cageeda ugu istaagto dowlad goboleedka galmudug waxaan leenahay marka fursada haysatiine baarlamaankiina ku soo noqda haddaad ka dhiga adeegtaan oo arrintaa idinku cuslaato oo aad naqataan xubno isku duuban oo inay wax muxuu ahay gorgortan galaa aad ku noqon kartaan idinka yeeli mayna galmudug inay saana ku dumi mayso gudoomiye ku-xigeenna u dhisan hannaan sharciga idinka la reebaayay annaguna bannaankaan taagannahay 20ka xubnood ee shalay taan bixinay ee beesha caalamka ay nagu cadaadisay dowladda federaalkana ay naga qaaday waxaan soo jeedinaynaa in dib loogula soo celsho in annagu aan dib u dooranno mana aqbalayno ayagoo halkooda jooga bannaankooda baarlamaanka ka jooga ayaan kaalintii 20ka xubnood 12 beelood ku buuxinayna haddii alla wada loo ogolaado intaasaan soo jeedinaynaa sababtoo wax dambe ee annaga nooga haray ee hadalo maba jiraan ayagoo markii hore aan ku heshiinay nidaamka aad wax ku qaadateena idinku taageernay ordo wax ku soo dhisa heshiiskii bay ka baxeen haddii heshiiskii laga baxay oo wixii la hagaajin lahay oo isla dhisan lahay yaan la dhisin la yiri annaguna waan aqbali weynay 20kii baan soo qoranaynaa haddii ay la noqotay ayagoo inay bannaanka gorgortan ku geli karaan annaguna 69kan ku beerinaa 89 saas u buuxsamayeen saasayna xubnuhu baarlamaanka galmudug ku dhammaan haddii alla wada loo ogolaado walaalayaal marka waxaan leenahay intaysa halkaas aysan naga wada gaarin oo wadaadada sufo u soo jeedinaynaa hoggaankooda waxaan leenahay arrintaas dib ha looga noqdo oo waxaan galmudug u roonayn waxaan magaca sharafta iyo karaamaheenna u roonayn waa waxaan adinkana idiin roonayn arrintaa dib ha looga laabto baarlamaanka lagu soo celiyo xildhibaanada aqli iyo maskax la adeegsado inaan wax wada dhisanna aan adeegsanno dadka halkan joogaa way daallan yihiin dib damban uga noqon mayna ilaa wax dhisano annagu guddoonkii baa noo dhisan baarlamaanka madaxweynayaasha iyo madaxweyne ku-xigeenadana waa la dhisanayaa baarlamaankiina cod ka sugayaan ay ku dhisanayaan asiga nasiibkiina ku soo baxa ninkii noo soo baxa halkan madaxweyne ka noqdana garab ya gaashaan baan siinaynaa waa taageeraynaa ilaa wadda la ogolaado ninkii nasiibkiisa noqoto cid gaar ah annagoo carab ku dhufanaynaa ma jirto waxaan leenahay marka galmudug muddo dhamay ka dhacaysaa 12 beelood ka badan ka dhacaysaaye ha lagu soo dhowaado ha loo tartamo sida hadda xalaasha ee guddoonka baarlamaanka gudoomiye ku-xigeenka ay uga soo baxeen ayaana uga dhowraynaa kuwa kale inay soo bixi doonaan dhib dambe nooma noqdo yaana loo celin dambna noo celin walaalahayna al-sunna waxaan leenahay walaalayaal tanasul sameeyo shalay waa idin tanasulnay xubnaan idinkaga tanasulnay 20 xubnood ah tanasulka idin tanasulnay in wax nagu dhistaan ku heshiin oo galmudug lagu dhiso galmudug ee sababsan ha duminina dibna ha noo celinina dadku way daalan yihiin ummaddiina u hiliya annagana waa idin helinay waa idin duceynaynaa ka tanasula waxaad kula jirtaan 20 xubnood dib u soo celiya waray wiilashow dhibaato badan la idinka soo maray xildhibaanow baarlamaankiina ku soo noqdo sharciga idinka la reebaa hadda aladme waana mahadsantahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh